taliyihii ciidanka ee dhowaan ay dileen waddanka Mareykanku ayaa waxaa lagu aasay dalka Iran gaar ahaan magaalada Karman waxaana aaskaasi oo muusig lagu galbiyay isla markaana loo dhigayay aas qaran taliyahaasi waxaana halkaasi ku dhintay 35 qof kadib markii dadku oo isu soo baxay isla markaana si xamaasadaysan uga soo qayb galay aaskaasi ay isjiireen waxaana halkaasi ka dhacday shaqaqo aan badnayn balse isjiiris iyo xoonka dadka soo ururay ayaa keenay dhimashadaasi taliyahaasi la ayaa ahaa ninka labaad ee ugu awoodda badan marka laga reebo hogaamiyaha dalkaasi balse muranka siyaasadeed ee ka dhaxaloosnaa muddo dalka Iran iyo waddanka Mareykanka ayaa keenay in la dilo taliye oo ahaa nin si weyn uga howlgala guud ahaan dhinaca ciidamada waxaanu si gaar ah ugu asteysnaa ciidamada arrimaha dabadda gaar ahaan wadamada Ciraaq Lubnaan iyo sidoo kale Gaza waxaana muddo badan ay waddanka Mareykanku u arkayeen nin dhinacooda xaq jir ku ah iyagoo aaminsanaa Mareykanku in nacayb gaar ah uu leeyahay dhinaca kale wasiirka arrimaha dabadda ee waddanka Iran ayaa waxa loo diiday inuu ka qayb galo shir qaramada midoobay oo ka qabsoomayay waddanka Mareykanka dalku galka fiisaha Mareykanka ayaa loo diiday waxaana wasiirka arrimaha dabadda uu ka sheegay xilli uu ka hadlayay shir ka dhacay waddanka Iran محمد علي حاشي تلفزيون كبدعس